walaalayaal dhammaantiin waxaa sharaf inoo ah maanta inaynu halka ku kulanno isdhegaysano wada hadallo wixii fikir iyo tala isweydaarsanno isla mar ahaantaana gogolahani waxay ka mid tahay gogolaheenni caadiga ah ee soo socday aynu isugu imaan jiray intaa markaan ka gudbo xaaladda Jubbaland qof kasta oo inaga mida iyo qof kasta oo caalamka jooga Soomaali iyo kuwa aan Soomaali ahayn aad bay ula socdaan meesha ay ka timidna waa la garanayaa meesha ay hadda maraysana waa la garanayaa ana waxaan jeclahay waxyaabaha hoos loo dhigayo inaan kor u soo qaado waxyaabaha aan la dhihin laga leexleexday inaan taabto baryahan wararkiina iyo xanta magaaladu waa farabadnayd muddo horena waa farabadnaan jirtay laakiin labadan maalmood waxaad moodaysaa inay xoogaa soo kacday waxaan rabaa inaan idiin sheego xantaasi iyo waxyaabaha suuqa la wado waa warxumo tashiil horaynu isu nidhi go'aan aynaan wada qaadanin iyo tala aynaan wada lahayn qofna kuma dhaqaaqi doono haddii aan la yidhaahdo waxyaabaha dadka qaar ay jeclaan lahaayeen inay dhacaan oo maxaanku dhaha iska soo daahana waxay u baahan yihiin dulqaad waxay u baahan yihiin adkaysi waxay u baahan yihiin in waqtigeeda la gaarsiiyo ilaahay baa adduunkan maamula xilliga wax dhacayaan siday u dhacayaan maanta inaan halkan isugu nimaano halkan aan wada joogno wax iska qornaabay ahayd oo ilaahay uu mar hore qadaray marka waxyaabaha kale soo socdaana waa qoran yihiin laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego annaga haddaad nahay hoggaankii isbeddel doonka hawshii aynu ku ballannay wax iska beddelay ma jiraan wax inuu iska beddelo noo qorshaysan oo aan ka ahayn inaynu guusha gaadhnana ma jiraan doorasho xor iyo xalaala inay Jubbaland ka dhacdo waxaan ahayn oo miiska noo saaranna ma jiro cid aan hadal kula gelayno iyo cid aan kala hadlayno iyo cid aan kala munaaqishoonayno wax aan ka ahayn in shacabka Jubbaland rabitaankooda ay miiska soo saaraan oo hoggaankooda iyagu doortaanna ma jiraan isbeddel doonku ma aha jagadoon madax doon ma aha waxaa la rabaa in la fahmo cid kastana ay fahamto haddaan aniga ahay odaygii aad u dhiibateenna hoggaami muhiimaddayda koowaad ee idinku hoggaaminaya maaha inaan anigu ama madaxweyne noqdo ama aan madax noqdo maaha waa in Jubbaland ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah qofka ay rabaanna ay doortaan taas ayaa wada qancin karta dadka oo dhan anigu haddaan rabo keliya ka shaqaynaya sidaan madaxweyne ku noqon lahaa wax badan baa halaabi laakiin waxaan ka shaqaynaynaa inay dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah haddii qofka uu ka shaqeeyo keliya siduu madaxweyne ku noqon lahaa oo luuqluuqiyo intuu ka baxo wax kharibo oo wax qoorta isu geliyo oo wax khaldo oo madaxweyne noqdo kalsooniba maba qaba qofkaasi kalsooni sababta uu ogyahay inuu si luuqluuqa ku yimid uu ogyahay oo macno aan samaynaynin oo khariban sidaasi darteed qofka waxaa la rabaa halkaa shacabka Soomaaliyeed ee jooga inay inta soo doortaan wakiiladooda oo odayaasha dhaqanku ay soo xulaan xildhibaano halkii kursiba hal qof saddex ma aha hadda u fiirsada saddex ma aha halkii kursiba hal qof 75 halkaa marka lagu xareeyana sanduuq halkaa la dhiga sida caalamka ka dhacda Soomaaliya oo dhan ka dhacda oo ninka jooga Minneapolis hadda Minneapolis waxay noqotay qayb ka mid ah Soomaaliya sababta dadka Soomaaliyeed halka joogaana waa ka yimaadeen badan kuwa kale oo halkaa joogaana siyaasadda Soomaaliya iyo Jubbaland bay ka shaqaynayaan iyo ka hoolka jooga ay isku si u tiriyaan hebel intaasoo helay hebel intaasoo helay hebel intaasoo helay hebel baa guulaystay ninka xataa garsooraha doorashada maamulaya inuu kuu sheego uma baahnid waa taqaanaa hebel intuu helay lamana khaldi karo sooma innaga taasaan horta ku qancayna hebel ha loo yeedho hebel iyo hebel oo meel wada gala
adiga maxaan ku idhaa xilkan qaado adigu xilkan qaado adigu lacagtan qaado adigu waxaan kala qaado Jubbaland ma anfacayso Jubbaland intaas way ka weyn tahay shacabkeeduna intaa ma istaahilo ee wuxuu istaahilaa inuu masiirkiisa iyo hawlihiisa isagu maamusho waxaanu ku ballannay inaan runta isu sheegno waxaan ku ballannay in aan lala kala dhuuman wixii yimaada hawshii aynu isku ogeyn ee ahayd isbedel doonka iyo dariiqii aan ku taagnayn wax ku soo kordhay oo culays ah oo annaga tiimka iyaga hoggaanka ah saaran ima jiro wax kasta oo yimaada iyo wax kasta oo la isku dayana waxaan leenahay xirfadeeda iyo dulqaadkeeda iyo qorshayaasha nooga degan ee kaga gudbi doona hadii aan la yiraahdo isbedel doonku meelaha uu soo maray ee aad garanaysaan wuxuu soo maray albaabadan mar baabuur teknikii taagneed wuxuu soo maray mar dayuurado iyo caleemo saare la sameynay wuxuu soo maray mar hanjabaado iyo saaxiibo la dilayay iyo kuwa la xidhay intaba uu soo maray maanta waxaas oo dhan waa laga soo gudbay xaqiiqda miiska saaran isbedel doonku 99% uu guuleystay sagaashan iyo sagaal boqolkiiba uu guuleystay insha Allah inta dambana way dhamaystirmi doontaa inta marka laga tago isbedel doonku macnihiisu waxa weeye in uu dadka reer Jubbaland u horseedo wanaag walaaltinimo iyo inay gacmaha isqabsadaan isbedel doonku wuxuu ka fog yahay qabiil iyo qoys iyo koox iyo in yaro meel isku soo xidha oo barnaamij gaar ah sameysata uu ka fog yahay aniga iyo saaxiibaday waxaan diyaar u nahay Jubbaland isbedel intuu ka dhaco oo cid ay rabto doorato agaasimayaal inaan ka noqono wasaaradaha iyo hay'adaha inaanu ganacsato iska noqono inaan beeraley iska noqono inaan kalluumaysato iska noqono ayaan diyaar u nahay taa waxay idin muujinaysaa haddaan qabno baahi madaxtinimo wax badan baan u nuglaanaynaa macnaha waxaan taa idin leeyahay inaanan u nuglaanaynin wax naloo sheego oo aan macno lahayn waxaan taa idinku sheegaynaa inaanan intan kala dhuumanaynin iyo inta daafaha caalamka joogta horaan u sheegnay Jubbaland dadkiisu 90% in ka badan waa isbedel doon ama dalka ha joogaan ama dibadda ha joogaan ama ciidan ha ahaadaan ama shacab ha ahaadaan inta markaan ka soo gudubno xaaladaha siyaasadeed ee wadanka ka jira waynu wada aragnaa magaalo Hibbland lagu shiray magaalo Hibbland lagu shiray magaalo Hibbland la isugu tagay magaalo kale la isugu tagay waxaas oo dhani wax anaga noo cuntamaya ma waxa noo cuntamaya ama aan fahmaynaa waxa halkan lagu yiraahdo Kismaayo lagu yiraahdo odayaasha dhaqanka salaadiinta maxaan ku dhalinyarada aqoon-yahanka gabdhaha xildhibaanada lagala tashado la yiraahdaa waxana miiska saaran ee taladiina ku darsado oo aan isla wada go'aansano taasaana dadka dhibaatada ka saari karta waxaan diyaar u nahay reer Jubbaland haddaynu nahay inaan dhisno Jubbaland la wada leeyahay midaysan dadku ay ka taladooda ay ka qaateen ee aan looga keenin dad kale ama gobollo kale ama wadamo kale in aan la dhihin kaalaya noo caleema saare ee shacabku ay caleema saartaan hooyooyinka iyo odayaasha iyo gabdhaha ay caleema saartaan taaynu u soconno waa taas hawlaha caalamku wado ama beel caalam ha la dhaho ama dawladda darisa ha la dhaho intuba waxay macna samaynayaan oo midho dhalayaan marka dalka Soomaaliya gudihiisa taladaasi ka socoto dawladaha iyo caalamka raba inuu Jubbaland gacan siiyo
waxay gacan ku siin karaan rabitaanka shacabka reer Jubbaland sida uu yahay sida ay iyagu rabaan gacan kuma siin karaan taasaa lagama maarmaan intaa marka aan ka soo gudubno waxaan rabaa inaan idin sheego oo hoosta ka wada xariiqno dhammaanteen taladii iyo hawshii iyo isbeddeldoonkii aynu soo daadihinaynay maanta wuxuu joogaa 99% inuu guulaystay ilaahay idankiis halka ka dhimanna wuu ku darsami doonaa kaasoo ah marka ay dhaladu inoo taalo in dhalada miiska soo saarno ayuu 100% buuxsamidi karaa waxaan rabaa aan idiin soo jeedinaynaa aniga oo kulligeen aynu maxaan ku idhaahdaa ka wada shaqaynayno in gacmaha la isqabsado Jubbaland shacabkeedu waa walaalo waxyaabaha dib u heshiisiinta laga hadla aniga ma u maleynaya inay macna samaynayso wax dagaalsan oo reer Jubbaland ma jiraan khalad baa jira khaladka in la sax kaliya u baahan tahay halkan aynu ku sheegnay bilo badan iyo muddo badan Jubbaland hadday ka dhici weydo doorasho la wada leeyahay doorasho la kala leeyahay baa ka dhacaysa haddii caleema saar la wada leeyahay ka dhici waayo caleema saar la kala leeyahay ka dhacaya haddii baarlamaan la wada leeyahay ka dhismi waayo baarlamaan la kala leeyahay ka dhismaaya intiiba way ka dhacday sooma wali waxaan ku celinaynaa oo ku taagannahay doorasho la wada leeyahay dhacdo waana dhici kartaa way sahlanta aad u sahlanta qof waliba inuu ilaahay aamino shacabkiisa aamino dalkiisa aamino wixii ilaahay u qoray uu aamino taasaa muhiima intaa marka laga tago ballanteenu waxay tahay annaga idinkaana dirsaday idinkaa yidhi hawsha noo qabta hawshaas in dhinacyada laga wada taagnaado loo istaago mana idin qaaymi doono mana idin hana ka fakerina taas haddii aan la yidhaaho wax kasta oo yimaada waxaan ku taagannahay in doorasho xor iyo xalaal ay Jubbaland ka dhacdo hebelow tanaasul horaan uga hadalnay hala tartamo maxaa la isugu tanaasul tartankii maxaa diiday cod in la qaado maxaa diiday in qofkii ilaahay u qoray uu meeshaas qabto maxaa diiday taasaan ku taagannahay taasaa inoo ballana hawshii qof waliba meeshuu ka haya ha ka laba jibaaro buuq la idinku furo sheeko la qoro sheeko la soo alifo sheeko maxaan ku idhaha durbaankeeda la tumo imisaa durbaan la tumaya meeshaan oo lalahaa saasaa dhacday oo zira ku soo dhammaatay wax kasta oo la isku dayo isbeddelka in lagu majara habaabiyo meel eberay ku soo dhammaan doonaan haddii aan la yidhaaho isbeddel doonkaana guulaysan doona haddii aan la yidhaaho shacabka Jubbaland waxaa waajib oo saaran in ay ka fogaadaan hebel maxaa dan u ah ama hebel muxuu rabaa waxaa la rabaa inay ka fakaraan maxaa shacabka Jubbaland dan u ah qof walba isaga maxaa dan u ah hebel iska daa waxa danta u ah taasoo ah inay walaalnimo ka shaqeeyaan in gacmaha la isqabsado in la wada dhisto maamul la wada leeyahay hoggaan la wada leeyahay cid Allah ma jirto cid maxaan ku idhaahdaa dhibaato ku haysaa ma jirto cid kale maxaan ku idhaahdaa riixi kartaa ma jirto gacmaha inta la isqabsado in la wada dhiso maxaan ku idhaahdaa maamul la wada leeyahay isbeddel doonka Jubbaland mar horena wuu sheegay haddana waa sheegaynaa waa ku celinaynaa annaga dadka walaalaheena wax nala leh ee reer Jubbaland waxaan ogolahay inaan wada hadalno is hor fadhiisanno sheekaysanno u sheegno waxa khaldan ayaguna inay arkaan waxa khaldan kuna sheekaysanno sidaan doorasho xor iyo xalaal ah u qabsan lahayn ma aha wax kale oo luqluq ah iyo wax kale oo aan loo baahnayn ma aha la isu tanaasulo ma aha maxaan ku idhaahdaa hebelow kaale waxaan qaado waxaa lagu shawrayaa oo lagu wada hadlayaa doorasho aan wada leenahay saan ku qabsan lahayn taasaan anaga ku taagannahay taasoo macnaheedu tahay inaanaan madaxtinimo baahi u qabine aan baahi u qabno Jubbaland inay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal intaa marka laga gudbo dawladda Soomaaliya waa dawladdeennii annagu mar walba dawladdeena waa dawladdanadii dhaliilaha laga tirsanaya way jiraan
gaabiska laga tirsanayo way jiraan waxa keenayna anagu waa garan karaa waxaa keenay waxaa aad ayaamihii hore Jubbaland maamulkeeda la abaabulahay dawladda Soomaaliya faragelin ku haysa dawladda Soomaaliya faragelin ku haysa dawladda Soomaaliya wax boobaysa dawladda Soomaaliya qabiil la dagaalamaysa dawladda Soomaaliya sidan yeelis taas la oran jiray sidaas oo ma ahayn dawladdu waxay rabtaa inay tusto shacabka iyo dadkaba in aanay faragelin ku hayn laakiin hadda halka way dhaaftay waxa loo baahan yahay in ay doorka dawladnimo ee Soomaalinimo ay qaadato taas laga rabaa oo ah inay dadkan cadaalad u fasho oo cadaalad ka shaqeyso inay gacmaha ka qabato shisheeyaha gacmaha la soo galaya in ay tiraahdo Jubbaland waa Soomaaliya taas loo baahan yahay oo doorkeeda qaadato anagu waa leena waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed reer Jubbaland iyo kuwa aan reer Jubbaland ahayn ba inaan u sheego waxa la isku haysta ee Jubbaland ka socdo horeyna waanu nidhi ma aha doorashada Jubbaland kaliya waa qarannimada Soomaaliyeed waxa la isku haysto taa ku talagala qarannimada Soomaaliyeed qayb kamida ayaa Jubbaland soo dhex gashay oo la isku haystaa waxaan rabnaa in qarannimada Soomaaliyeed la wada ilaaliyo dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ay wada ilaaliyaan waxaan rabnaa inaan u sheegno kuwii waagii dhaweyd yiri caleema saar baan u nimid rag badan oo saaxiibada ayaa ku jira hadduu ahaan lahaa madaxweyne Deni hadduu ahaan lahaa madaxweynihii hore Faroole hadduu ahaan lahaa Xasan Sheekh hadduu ahaan lahaa Sheekh Shariif hadduu ahaan lahaa kuwa kale ee faraha badan ee xisbiyada ama madaxweyne dawlad goboleedyo soo maray waa saaxiibadayba wada ahaayeen maanta waxay ka cabaadayaan iyaga laftirkoodii maanta waxay ka cabaadayaan dhuusamareeb bay waxay leeyihiin cadaalad darra ka socota iyaguna waxay taageereen cadaalad darra Jubbaland ka socota bal Soomaalida daciifnimadeeda nimanka odayaasha daciifnimadooda waxay maanta ka cabanayaan oo leeyihiin cadaalad darra socota shalayna halkan waxay u yimaadeen inay cadaalad darro taageeraan farmaajo waxay ku haystaan cadaalad baan ka rabnaa waxayna taageerayaan cadaalad darro oo markay hadlayaan waxay leeyihiin farmaajo cadaalad darraad samaynaysaa Jubbaland baad cadaalad darro ka samaynaysaa iyagana waxay rabaan in cadaalad loo sameeyo dhagahooda iyo afkooda isma maqlayaan aniga nimankaas saaxiibada weli lama hadlin inaan la hadlana mar raba weli sababtoo ah iyagu saaxiibtinimadii bridge-kii saaxiibtinimada buundadii saaxiibtinimadii ka gudbeen laakiin ani waa ilaalinayaa hal buundaan dib u dhigayaa marka maanta lama hadlayo nimankaas laakiin intaa aan idhi fariin way ugu filan tahay hadday cadaalad rabaan waa inay cadaalad taageeraan laakiin adoo cadaalad darro taageeraya inaad haddana cadaalad raadiso wax iman kara ma aha dadka Soomaaliyeed bayna u taallaa arrintaa inay qiimeeyaan intaa marka laga soo gudbo Jubbaland gudaheeda gobolka Gedo oo ka mid ah gobolada dawlad goboleedka Jubbaland ciidamada diiwaangelintoodu waxaan qabaa inay tahay wax aad muhiim u ah Soomaaliya waxay u baahan tahay ciidan qaran oo national army ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed bay u baahan tahay in ciidamada la diiwaan geliyo waxay keenaysaa inay xuquuq helaan oo bil walba si joogta xuquuq u helaan waxay helayaan dalacaad inay garaadahoodii helaan waxay helayaan inay helaan koorsooyin iyo maxaan ku idhaahdaa koorsooyin maxaan ku idhaahdaa ay aadaan gudaha iyo dibaddaba ay aadaan waxay helayaan shacabkaasi inay horumar helaan oo maxaan ku idhaahdaa horumar helaan marka diiwaangelinta ciidanku waa lagama maarmaan ma aha Gedo kaliya meel kasta oo Jubbaland in laga diiwaangeliyo aad bay muhiim u tahay waana soo dhaweynaynaa waxaan kaloo soo dhaweynaynaa maamulka gobolka Gedo oo hadda Jubbaland marka laga hadlayo magaalada Kismaayo degmada Kismaayo degmada Afmadow mooyaane Jubbaland kale ma jirto waa inta Gedo kaliya meel kale degmo kale oo Jubbaland ah ma jirto oo intii kale waa la haystaa degmooyinkaasi maalin dhaweyd maamulkooda fasiraado badan baa laga bixiyay maamulkoodu waxay yiraahdeen waxaan la shaqayn doonaa maamulka rasmiga ah ee Jubbaland loo dhisaan la shaqayn doonaa
inta maamulkaa loo dhisayna dawladda dhexan ka amar qaadanayna xaq bay u leeyihiin maamulku mar haddii maamulkii jubbaland ee la wada lahaa in la dhiso la hor taagan yahay oo inuu shaqeeyo la hor taagan yahay waxay noqonaysaa in qof waliba sidii uu ku jiri karo uu ku jiro taa macnaheedu waxay tahay in ay sugaan inta jubbaland maamul rasmiya laga dhisayo oo doorasho xor iyo xalaala ay ka dhacayso oo qofkii soo baxa maxaan ku idhahdaa oo mas-uuliyadda la wareegayo xaq bay u leeyihin taasi waxay keenaysaa in horumar badan ay helaan oo mashaariic badan laga fuliyo degmooyinka kale degmooyinka lamaba soo hadhinba kismaayo afmadow waa soo hadh ayagana mas-uuliyiinta xukunta hadday hadli karaan ama wax dhihi karaan iyaga u taallaa oo ay sheegan karaan waxa danta shacabkaasi ku jirto ayaga u taallaa taas waxaan rabaa oo aan hadalkaa usoo qaatay waxyaabaha laisdhex gelinayo oo maxaan ku idhaahdaa buuqa abuuraya looma baahna dadkani wuxuu u baahan yahay gedo iyo jubbada dhexe iyo jubbada hoose saddexda gobol oo gacmaha is haystaa la yidhahdaa jubbaland laba gobol ma aha jubbaland gobol gaarina ma aha jubbaland laba degmana jubbaland ma aha taasaa loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo isbedel doonku taargetka uu leeyahay ama qorshaha uu leeyahay jubbaland waa in doorasho ka dhacdo doorashadaasi ha ka dhacdo kismaayo aad baan usoo dhawaynaynaa inay kismaayo ka dhacdo hadday ka dhici weydo meel kasta oo jubbalanda garbaharey baardheere bu'aale saakow afmadow badhaadhe meeshay ka dhacayso in lagu qabto inta la xoreeyo taasaanu doonaynaa waxaan hadalkayga ku soo ururinayaa ujeeddada shirkeennuna ahaa isbedel doon inuu laba kacleeyo guushu waa dhowdahay guusha isu taago maalmahan yarka ah oo maxaan ku idhaahdaa sheekooyinku fara badan yihiin waxaa isdhaafayaa fara badan yahay laga yaabo maxaan ku idhaahdaa dhaqdhaqaaqu inuu intii hore ka bato wax shakiya inaanu idin gelin been laydiin sheegin maxaan ku idhaahdaa wax laydiin soo qorqorin waxaasoo dhan inaad meel iska dhigtaan dariiqa aan ku taagannahay inay uu yahay in doorasho xor iyo xalaala ay jubbaland ka dhacdo oo la wada leeyahay oo odayaasha dhaqanku ay garwadeen ka yihiin intaasaa ballanteennu tahay oo aynu ku taagannahay wax intaa ka baxsan qof annaga oo ka fakeraya oo isbedel doonka ahna ma jiro meel kastoo uu joogo iyo hawl kastoo uu ku jiro intaa inaad ku maxaan ku idhahdaa qaadataan idinkuna mar walba taladiinna keentaan doorka aad leedihiinna qaadataan shacabka reer jubbalandna waxaan ugu baaqaynaa walaalnimo iyo in gacmaha la isqabsado cid col ahi ma jirto cid col ahi ma jirto cid maxaan ku idhaha khilaaf ka dhexeeyaana ma jirto waxa khilaafka keliya taagan waxay tahay doorasho xor iyo xalaala qabo iyo qaban mahayo jubbaland ha tashato iyo tashan mayso waa intaasaana ku taaganna kama reebana isbedel doonku in uu maxaan ku idhaahdaa sameeyo in uu abaabulo doorashooyin haddii dawladda federaalka inay ka gaabiso maxaan ku idhaahdaa cid kaleoo qabatana jirin inaynu inagu qabsanno xilliga aan rabno iyo meesha aan rabnana ku qabsanno haddii la yidhahdo kana tashan doono intaasaa inoo ballana taa aan isku ogaano gacmaha la ysku qabsado aad baa umahadsantihin